oo haweeneydii arrimaha samafalka ka shaqeynaysa bishii November 2018 laga soo haftay koonfur bari ee dalka Kenya lana soo daayay maalinnimadii shalay ahayd ayaa la sheegay inay qaadatay diinta Islaamka. wakaalada wararka u faafisa Talyaaniga ah marka la soo gaabay loo yaqaan ANSA ayaa sidaas ku warantay iyadoo soo xiganaysa warbixino dhanka sirdoonka la xaqiijiyay in aan lagu qasbin haweeneyda Salfia Romano inay qaadato diinta Islaamka. dableel aaminsan inay gacan saar leeyihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa laga soo wareegay qaybo ka mid ah Soomaaliya inay ku haysteen muddo 18 bilood ah. Romania oo haddii dib ugu laabtay dalkeeda ayaa waxaa soo dhaweeyay madaxda qoyskeeda shacbiga iyo waliba dadweyne aad u tiro badan. warbixinada sirdoonka dalka Talyaaniga ayaa intaa ku daraya in ay bedeshay hab nololeedkeedii waliba magaceeda sidoo kalena ay ku qanacday inay qaadato diinta Islaamka kadib markii ay sheegtay inay akhrisay wax badan oo ka mid ah Quraanka Kariimka. baarayaasha dalka Talyaaniga waxay sheegteen arrimahan oo idil ay kala hadli doonto qoyskooda kadibna ay tafaasiil dheeri ah ka bixin doonto ayaa lagu yiri warbixin lagu daabacay wakaalada wararka ee dalka Talyaaniga ANSA. sawirada la soo qaaday markii ay ka degtay garoonka diyaaradaha ee Roma, Salfia ayaa muujinaya iyadoo madaxeedu uu xijaaban yahay. warbaahinta Talyaaniga ayaa warinaysa inay arrintan ay keentay kadib markii la helay in warbixinta lagu daabacay wakaalada wararka ANSA in haweeneyda la guursaday. jirida qaarkood ayaa soo xiganaya wareedyo kala duwan oo aysan magacaabin ayaa daabacay inay leedahay Salfia Romano uur 6 bilood ah. haweeneyda ayaa waxay madax ka ahayd hay'adda gargaarka Africa Milele taasoo howlo bani'aadamnimo kala fuusa qaar ka mid ah wadamada Afrika walow ahmiyadda koowaad ay siin jirtay gudaha dalka Kenya. arrintan ayaa soo baxaysa kadib markii haweeneyda muddo 18 bilood ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku haysteen sida wakaalada wararku ay qartay meel 30 kiiloomitir u jirta magaalada Muqdisho ah degmada Afgoye howdkeeda, laakiin inta badan laga warqabin in halkaasi ay ku haysteen dagaalamayaasha Al-Shabaab. laakiin warbixintan ay qortay wakaalada wararka ANSA ay soo diyaariyeen sirdoonka dalka Talyaaniga ayaa sidoo kale lagu sheegay haweeneydan aan lagu qasbin qaadashada diinta Islaamka ay iskeeda ay qaadatay, laakiin warar hoose ayaa sheegaya in uur ay leedahay laakiin taa bedelkeedu qoyskooda ay soo bandhigi doonaan aragtiyaan waxay ka qabaan kadib markii gabadhooda dib ugu soo laabatay dalka Talyaaniga waxa ay la timid